kulan wanaagsan daawadayaal meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga warbaahinta gundhig oo habeen walba aad ka daawan doontaan saacadu markay tahay 9 habeenimo xilliga geeska Afrika warbaahinta gundhig qaybteeda YouTube-ka barnaamijkan oo ku eegno dhacdooyinka caalamka ka taagan kuwada ugu waaweyn qodobo dhowr ah ayaa caawa ku maqli doontaan waxaan ka mid ah qodobadaasi qaramada midoobay oo ka dayrisay khilaafka cusub ee Israa'iil iyo Iiraan ee ka taagan gudaha waddanka Syria dagaalka ka socda maalintii labaad gobolka Kashmir qaybta ay Hindiya gacanta ku hayso diyaaradda dalxiis oo soo dhacday xilli ay mareysay hawada gobolka Arizona ee dalka Mareykanka muhaajiriinta Afrikaanka ee ku sugan Talyaaniga waxa la soo warinayaa inay dabadbaxyo waaweyn ka dhigayaan waddankaasi Iiraan oo dabaaldegaysa sanad guuradii 39aad ka soo wareegtay markii ay xukunka la wareegay kacdoonkii Shiicada iyo shanta ciyaaryahan ee ugu wanaagsan qaaradda Afrika ayaa barnaamijka ku daawan doontaan hadii qodobadaas iyo qodobo kale ay barnaamijka ku daawan doontaan hadii Rabbi idmo mar kale ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga warbaahinta gundhig aynu ku bilaawno qodobkeena koowaad ee qaramada midoobay warbixin ay ka soo saartay xaaladda cakiran ee dalka Syria ay ku sheegtay in xaalad aan caadi ahayn uu dalkaasi ku sugan yahay kadib weeraro wajiyo badan oo maalmahan soo lixaadsaday qaramada midoobay ayaa xaaladan mid degdeg ah ku sifaysay waxayna dhibaatadan mugga weyn ee hadda taagan dusha ka saartay gumaysiga Israa'iil oo weeraro xooggan ka wada gudaha waddankaasi Syria ciidamada Yuhuudda ayaa dhowrkii toddobaad ayna dhaafay waxa ay duqeyn la beegsanayeen sida ay iyagu markaasi sheegteen xarumaha ciidamada Syria iyo xiriyaha ciidan ee Iiraan ay ku leeyihiin waddankaasi Syria balse warkan ay soo saartay qaramada midoobay iyo waliba dadka deegaanka sida ay sheegeen Israa'iil ayaa weeraradan oo aan bartilmaameed lahayn inta badan waxa uu yoolkoodu ku dhamaadaa gumaadka shacabka ay culaaduhu naafeeyeen ee Syria u dhashay arinta hadda Syria ka taagan waxa ay u baahan tahay in la dejiyo oo xiisadda la qaboojiyo sida waxa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ciidamada Yuhuudda ayaa maalnimadii shalay ahayd waxa diyaarad ka soo riday markii ugu horeysay muddo 10 sano ah ciidamada Syria soo ridista diyaaradana ayaa timid kadib duqeyn u muuqatay mid goosi ah Israa'iil ayaa shalay ku eedeysay Iiraan in diyaaradaheeda aan cidi wadin ay dul heehabaya buuraha caasimadda Syria ee Dimashq ee la yiraahdo Golan Heights kuwaas oo Yuhuudda ay Syria ka qabsatay dagaalkii Carabta iyo Yuhuudda ee 6 bari ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa xaaladda Syria ku sheegtay inay halisteedii ugu badneed ka soo bilaabatay 2015 xilliga oo Ruushku uu gacmaha dhigeystay oo soo galay dagaalka wajiyada badan ee Syria ka ogan haddii aan inta uga tagno xaaladda Syria iyo waliba Israa'iil qodobkeena labaadna wuxuu noqonayaa gobolka colaadeedka Kashmir gaar ahaan dhinaca ay xooga ku haysato India waxa maalintii labaad galay dagaal goosgoos ah oo u dhaxeynaya ciidamada Hindiya iyo waliba koox fallaaga ah oo gobolkaasi ka dagaalanta ugu yaraan 6 askari ayaa geeriyootay ilaa hadda wali waxa la soo sheegayaa in dhawaqa rasaasta ay labada dhinac iswadaarsanayaan laga maqlayo gudaha magaalada Juma ee ismaamul hoosaadka Kashmir ciidamada booliska ayaa sheegay inay dileen 3 kamid ah kooxihii weerarka soo qaaday halka 11 qof oo shibil ahna ay ku dhaawacmeen isku dhacyadan weerarka ayaa lagu soo qaaday xero military ee lagu magacaabo Sunjwan taa oo kamid ah xeryaha ugu waaweyn ee ciidamada Hindiya ay ku leeyihiin Kashmir ninka la yiraahdo Bipin Rawat oo ah taliyaha ugu sareeya ciidanka Hindiya ayaa maanta booqanaya deegaankaasi si uu soo indheeyo xaaladaha ka taagan magaalada la soo weeraray Juma dadka deegaanka ayaa intooda badan isaga baxay gobolka waxa ayna qabteen sida la soo sheegayo goobo ka fog goobaha lagu dagaalamayo gobolka Kashmir oo kamid ah goobaha ugu barwaaqada badan guud ahaan caalamka dadka degan intooda badan 90% ay muslimiin yihiin waxa gacanta ku haya India dhulka intiisa badan marka laga reebo qayb yar oo Pakistan ay maamulayso markaasi India ayaa dhulkan Pakistan ka qabsatay dagaalkii dhexmaray India iyo Pakistan sanadkii 1977 dagaalkaasi oo Pakistan ay ku weysay qaybo badan oo kamid ah goboladeedii oo ay ku jirto maanta waddanka la yiraahdo Bangladesh waddankaasi oo gooni isu taagay tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkaasi adag ee dhexmaray India iyo Pakistan 1977 dhinaca kale qodobkeena saddexaad ee barnaamijkan wuxuu noqonayaa Israa'iil waxa ay dignan culus u dirtay dawladda ay sida weyn isu hayaan Iiraan ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu fariin culus oo dhiil xambaarsan u dirayo Iiraan
Netanyahu ayaa uga digay Iran inay isku daydo inay weerar ku soo qaado Israel, waxa uuna ku faanay inuu iska difaaci doono cid walba oo dibadda weerar ka keenta Israel. Benjamin Netanyahu oo sheeganaya in Israel ay dal gooniya tahay ayaa ku goodiyay in haddii ay madaxbannaanidooda Iran ku xadgudubto ay ka dhaxli doonto cawaaqib aysan mahadin. Jamciyadda Qormaha ka dhaxaysana oo walaac xoogan ka muujisay xaaladda Syria ayaa ku baaqday in la qaboojiyo xaaladan ugubka ah ee ka taagan gobolka Bariga Dhexe. Yuhuudda gobolkan waxa ay ka geystaan gabodfallo ka baxsan bini'aadanimada, mana jirto cid la xisaabtanta oo waxaa gadaal ka taagan maamulka madaxweyne Trump iyo dowladda Mareykanka. Dhinaca kalena, Masar oo dagaalo xoogani ay kaga furan yihiin gacanka Sinai ayaa militariga dalkaasi howlgal ay ka fuliyeen gobolka Sinai waxa ay sheegeen inay dileen qaar ka mid ah xubnaha ka dagaalamaya deegaankaasi. Ciidamadu waxa ay sheegeen inay dileen 16 ka mid ah maleeshiyaadka ka dagaalamaya Sinai kadib weeraro lagu qaaday fariisimo ay leeyihiin kooxahaasi. Sidoo kale militariga ayaa sheegay inay soo xireen 30 qof oo ay kaga shakisan yihiin inay kooxaha dagaaloogayaasha ah ay ka tirsan yihiin, waxaana dadkaasi lagu eedeeyay inay gawaari iyo goobo ciidan ay markaasi halkaasi ku burburiyeen. Militariga Masar ayaa markii horeysay sheegay inay bilaabeen weeraro lixaad leh oo gobolka Sinai uga sifeynayaan waxa ay ku sheegeen kooxo argagixiso ah oo deegaankaasi awood ku leh. Madaxweynaha waddankaasi Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa dhowaan kulan uu la yeeshay saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Masar waxa uu amar ku siiyay in muddo bilooyin ah gobolka Sinai kaga saaraan kooxaha halkaasi ka dagaalamaya. Gobolkan ayaa waxaa la aaminsan yahay in laba xarako oo firfircoon oo Al-Qaacida iyo Daacish ku abtirsada ay ka dagaalamayaan. Iran waxaa loo dabaaldegayaa sanad guuradii 39aad ee kasoo wareegatay markii uu xukunka qabsaday kacaanka Shiicada ee dalkaasi. Kacaankan ayaa waxaa hogaaminayay wadaad ay si weyn Shiicadu uga dambeysay oo lagu magacaabi jiray Ayatullahi Ruhollah Khomeini, ka oo dhowr bilood uun kadib masaafuris dalka dibadiisa kaga soo laabtay. Sanadku markuu ahaa 1979 waxaa la soo afjaray boqortooyadii Shah la oran jiray. Boqorkii ugu dambeeyay ee boqortooyada Shah oo lagu magacaabi jiray Mohammad Reza Pahlavi ayaa waxaa afgembi ciidan oo dhiig uusan ku daadan xilkii kaga tuuray koox diimeedka Shiicada Raafiyiinta. 39 sano kadib, dalka Iran ayaa u muuqda mid isbedel xoogan uu ka muuqdo maanta, waxa uuna ka mid yahay wadamada awoodooda dhaqaale iyo tan ciidanba aan la dheelsan karin, gaar ahaan waa wadanka ugu awooda badan wadamada dhaca mandiqada Bariga Dhexe. Kooxdan Shiicada ah intii ay xilka hayeen waxaa soo wajahay caqabado lixaad leh oo ay ugu horeeyaan barnaamijkoodii nuclear-ka ka oo kusoo jeediyay indhaha caalamka, waxaana markaasi ay arrinkaasi qabsatay inay ku dhawaad 10 sanadood ay cunuqabateyn saarnaato wadankaasi Iran dabiiqada sanadkii hore ee 2017 ilaa bilowga sanadka 2018 waxaa ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo lasoo warinayo oo looga soo horjeedo markaasi nidaamka Iran, kuwa ay soo abaabulayeen dhalinyaro Faris ka soo jeeda oo intooda badan wax ku soo bartay wadanka ama wadamada reer galbeedka. Madaxweyne Rouhani iyo dowladiisa arrinkan waxa ay ku eedeeyeen Mareykanka, waxa ayna wacd ku mareen inay hor istaagi doonaan waxa ay ku tilmaameen kooxo caadaqaatayaal ah ee mindiyaha lagu soo dhiibay inay dadkooda ku dooxaan. Dibadbaxyadani oo maalmihii hore ay dowladdu u taagweysay ayaa markii dambe iskood u istaagay kadib markii dowladdu ay xabsiga u taxawday dadkii horboodayay shacabkii caraysnaa ee dowladdu ku canaanaysay in hal dhig uun ay wax ku maqlaan, loona baahan yahay inaysan gacantooda ku burburin Iiraanta horsocodka ah. Waa sida horjoogayaasha gacanka Iiraan ay qabaan. Markana Mareykanka gaar ahaan gobolka Arizona, diyaarad helicopter ah gaar ahaan nooca lagu wareejiyo laguna dalbaro dalxiisayaasha ayaa soo dhacday. 3 qof oo dalxiisayaal ah ayaa geeriyooday, 4 qof oo kalena dhaawac ayaa soo gaaray, sida ay sheegayaan hay'adaha ammaanka ee gobolka Arizona ee dalkaasi Mareykanka. Diyaaradani ayaa la sheegay inay soo dhacday xilli ay dalxiisayaal waday oo shaqadeeda caadiga ah ay wadatay. Ilaa iyo hadda lama oga sababta keentay inay soo dhacdo diyaaradan oo magaceeda lagu sheegay Eurocopter EC-130. waa sida ay xaqiijinayaan hay'adaha duulimaadyada rayidka ee Mareykanka. Daawadayaal, weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka bandhiga warbaahinta Gundhig. Dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Hong Kong gaaray nooca dadweynaha ayaa shil galay, waxaana la sheegay in khasaaro aan tiro yarayn uu soo gaaray dadkii safarka ahaa. Ugu yaraan 18 qof ayaa dhimatay, 50 kalena waa ay dhaawacantay kadib markii baskani uu wadada ka baxay. Sawirro laga soo qaaday baska xilligii gurmadka lagu guda jiray ayaa muujinayeen baabuurka saqafkiisa kore inta la dilaaciyay halka laga soo saarayo dadkii rakaabka ahaa.
baabuurkani ayaa la aaminsan yahay inuu xawaare dheereeya uu ku socday, taasina ay keentay sababta uu wadada kaga baxay. balse ciidamada booliiska waxa ay sheegeen inay weli baaritaano wadaan, ayna dib warbaahinta kala soo socodsiin doonaan wixii markaasi kusoo kordha. darawalka baskan oo kamid ahaa dadkii aysan waxba soo gaarin ayaa la xiray. qaar kamid ah rakaabkii ayaa aaminsan in si xad dhaaf uu baabuurku ku socday xilligii uu rugmanayay, waxayna darawalkii baabuurka ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay mas-uuliyaddii saarneyd. guud ahaan dalka Shiinaha ayaa waxa uu ku badan shilalka basaska, iyadoo inta badan loo sabeeyo wadooyinka ciriiriga badan ee dalkaasi Shiinaha, taa oo ay ku dhiban yihiin gawaarida waaweyn sida basaska. waxaanu soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena. qodobadeena mid kamid ah qodobka ugu dambeeyana waxa weeye muhaajiriinta wadanka Talyaaniga gaartay ee ka socota qaaradda Afrika ayaa waxaa la soo warinayaa in dhibaato xoogan ay haystaan kadib tiro dhowr jeer ah oo markii la dilay lana dhaawacay qaar badan oo ka tirsan muhaajiriintaasi. kumanaan qof oo kamid ah ama ka yimid qaaradda Afrika ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada lagu magacaabo Marsareta, waxa ayna ka ashtakoonayaan dhibaato xoogan oo dadkaasi soo food saartay. dhowr qof oo kamid ah dadka qaxootiga ayaa maalmihii lasoo dhaafay la dilay, halka kuwo kalena ay la kulmeen cunsuriyad xadaaf ah, taa oo lagu dhadhansiiyey qaraarka uu qurbuhu leeyahay. dadkan ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen dooni mayno naasiyiin, dooni mayno fashiiste iyo erayo kale oo muujinaya cadaalad darrada ay tirsanayaan. bishii hore ee Janaayo 3 maalin kadib markii ay socotay ayaa ciidamada Talyaaniga waxa ay dileen wiil 28 jir ah oo galbeedka Afrika ka soo jeeda. usbuuc kadibna wargeyska Talyaaniga ugu afka dheer ee ka soo baxay wadankaasi la yiraahdo Republic ayaa baaritaan uu sameeyay. waxa uu ku soo ogaaday in ceeji lagu dilay gabar ka soo hijrootay Afrika oo 18 sano jir ahayd. dadka Afrikaanta ayaa waxa ay la kulmaan cunsuriyad xoogan oo si toos ah ay rasaas ula dhacaan una dilaan ciidamada booliiska iyo kooxaha maafiyada, taa oo ah kooxo burcada oo dilal iyo dhacba ka geysta wadankaasi Talyaaniga. ma jirto ilaa hadda wax war oo ka soo baxay dowladda Talyaaniga oo ku aadan warkan. daawadayaal waxaanu soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena bandhiga warbaahinta gundhig. qodobkeena ugu dambeeyana waxaa noqon doonaa 5 ciyaaryahan ee ugu wanaagsan qaaradda Afrika. dad badan oo ayaa isweydiinaya 5 ciyaaryahan ee qaaradda Afrika cidda ay markaasi kala yihiin iyo sababta loo soo magac dhaway, iyadoo ay jiraan ciyaartooy waaweyn oo magac iyo sumcad ku leh qaaradda Afrika. qaaradda Afrika waxay kamid tahay wadamada sida weyn looga xiiseeyo kubadda cagta, iyadoo taageerayaashu ay aad u xamaasaysan yihiin, waxaana qaaradda lagu tilmaamay inay kamid tahay qaaradaha ugu daawashada badan kubadda cagta. ciyaartooy waaweyn ayaa qaaradda u xamaal taga oo qaaradda Yurub sidoo kale taga kooxaha waaweyn ee wadamadaasina u ciyaara. ciyaaryahanka caanka ah ee kooxda kubadda cagta Cameroon una dhashay wadankaasi Cameroon una soo ciyaaray kooxaha Barcelona iyo Inter Milan ee lagu magacaabo Samuel Eto'o ayaa waxa uu kamid yahay 5 ciyaaryahan. George Weah oo ah madaxweynaha wadanka Liberia una dhashay wadankaasi una soo ciyaaray kooxda AC Milan ayaa isna waxa uu kamid yahay 5taasi ciyaaryahan. Didier Drogba xidigii hore ee kooxda Chelsea una dhashay wadanka Ivory Coast ayaa kamid ah 5 ciyaaryahan ee ugu caansan qaaradda Afrika. Roger Milla oo Cameroon ayaa isna ku jira. daawayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeena xiisaha badnaa ee bandhiga warbaahinta gundhig oo habeen walba aad ka daawataan. intaan barnaamijkan kula kulmi doonaa kaga tegayaa sidaa iyo